gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee injineer Faysal Cali Waraabe ayaa subaxnimadii hore saaka kormeer ku tagay suuqa weyn ee Waaheen isagoo eegaya xaaladda guud ay ku sugan yihiin dadka danyarta inaan eegno xaaladda nadaafadda iyo dhibaatooyinka waxa tabanaysan ogaano waan ogaano idinko noo waran isa macallin waan aragnay waxa meesha ka taagan waan bulaacada socota waan aragnay oo jawaab daarta waxa dhisay dawladii aynu ridnay qabiilka aheed ayaa magana saayna xasuuqyaan dhistay maanta waxa weeye tan aynu haysnay 22 sano taasoo kale way dhisi kari waayeen isma lahayn hargeysa waxay u darsan doontaa dadkii la soo magacaabi jiray ee xamar laga soo magacaabi jiray ayaa u darsanaysa isma lahayn kuwii maanta jooga waxa garanaya kuwa wax ku moorjaa waxa garanaya waxay noo ballan halkaas madaxweynaha waan u teginaa haddii uu go'aan ka gaadho waayo aan ku midaysanahay dawladda hoose meerada bilaa sharciga hadduu ka gaadho waayo go'aan baarlamaanka 7 bilaa sharciga hadduu go'aan ka gaadho waayo ku wada jirno ilmaha ayada aabihii dhintay guurta laga dhigayo u dhaarinayo Saleemaan gaalgaarinayo oo cid kale ka wakiila Saleemaan ka wakiila waxaan sameeynaa baawarka quwadda ugu weyn ee ummaddu waa shacbiga weyn maalinta oo nila soo baxo albaabadeenu ka soo saarinayo yaa la waayay maalinta yaa la waayay meherada xiranaysan baarlamaankeenu qabsanayna guurteenu maqsanayna madaxtooyada soo taagna ilaa la kala waxaanu si sharaf iyo karaamo leh waanu aad ugu faraxsanahay u soo dhaweynaynaa madaxda xisbiga UCID uu hogaaminayo madaxweynaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Xuseen madaxweyne ku-xigeenka Abiyan iyo waliba madaxda kale ee xisbiga UCID haddii aanu nahay gudida suuqa Waaheen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddii aanu nahay shacbiga reer suuqa ku dhaqan suuqani waxa weeyaan suuqa ugu weyn Somaliland gaar ahaan caasimadda waa suuqii u baahnaa in wax laga qabto waa suuqii u baahnaa in caafimaad laga sameeyo waa suuqii u baahnaa in saldhig loo sameeyo waa suuqii u baahnaa inay suuliyo iyo meelaha ay ku faraxashaan ay helaan waa suuqii u baahnaa inuu muxuu ahaye waxyaabo fara badan oo tansiilaad uu helo ma hayno haddii aanu nahay suuqa Waaheen dawladda laba jeer baan aragnaa markay dadka danyarta ay doonayso inay codkooda xaaraan ku qaadato iyo marka ay cashuurta doonayso cashuurtu kama hafsaanta dawladda laakiinse shaqada ay ku lahaayeen waajibka u lahaayeen marnaba ma qabtaan waxaanu leenahay dadku waxay lahaayeen waanu qufranay laakiinse imika moolisku bay noo hadhay waxaan leenahay suuqa dhaqdhaqaaqa suuqa ka jira ee ganacsiga maanta muxuu ahaayey dadka danyarta haddii aan ka warramo meherado fara badan baa muxuu ahaayey sii laabanaya qaar fara badan oo kale bisaarad fara badan baa haysta injineer Faysal Cali Xuseen oo aayatullah ruuxiga ah ee Soomaaliland ahna shirgudoonka labada xisbi ee imika ee mucaaradka waxaan leenahay isaga iyo professor Abiyan xogayaha dhamaantiin mas'uuliyadda xisbiga UCID nagu soo booqday maanta goobtan si kan iyo laba ayaan idin soo dhaweynaynaa waxaan doonayaa halkan inaan warbixin yar oo kooban idinka siino oo ku saabsan suuqan ugu weyn Somaliland ee Waaheen iyo shiraaqdo isku jira waxaan doonayaa inaan farta ku fiiqo oo tilmaamo xilliga quraan dawladda aragna waa xilliga ay cashuurta doonayso halka ay imika horteena kamarada waa ku qaban kartaan oo barta muqumada xoolaheena laga qaado quraacdu ku quraacdo musabixi barta laga qaado weyn nadaafadeed iyo saateeshkeeda waa aragtaan ilaahay calaykum waxaan idinka codsanaynaa in kamarada ku qabataan maxaa loo qabtaa dadkan cashuur baa laga qaadaa Xamse Maxamed Muuse Cawke Real TV Hargeysa